sanadkii 2009 isagoo xilligaas jiray 17 sano ayaa la guddoonsiiyey biladda hogaamiyaha dhalinyarada ee sanadka. wuxuu ka mid yahay koox dhalinyaro ah oo ay soo xisheen qoyska boqortooyada dalka Norway, kana mid ah wufuudda sanadlaha ay ka qayb gasha madasha dhaqaalaha adduunka. wuxuu hore u soo aasaasay dhowr shirkadood oo qaarkood maanta ay ka shaqeeyaan dad ka badan 100 qof. haddana waa milkiilaha iyo wax ka aasaasaha shirkadda Zubit oo dad badan ay aaminsan yihiin inay mustaqbal aad u weyn ku dhex leedahay suuqa logistiga dalka Norway. waxaas dhan waxa iga muhiimsan waa Soomaali, adiga muuqaalka daawanaya iyo aniga oo kala ah. ku soo dhawaada barnaamijka Dhambaal. nabad daawadayaal, ku soo dhawaada mar kale barnaamijka Dhambaal iyo warbaahinta Nurse News. magacaygu waa Saciid Maxamuud Muuse. sidaan barnaamijkii kan koreey ku sheegay, dalka Norway waxaa ku dhaqan dad Soomaaliyeed oo tiro ahaan gaarayo 44,000. ku dhawaad 50% ama kala bar waa dhalinyaro ku kortay ama ku dhalatay. 10kii sano ugu dambeeyay waxaa aad u soo badanayay guulaha ay dhalinyarada Soomaalida ee waddanka ku kortay ama ku dhalatay ka gaarayaan qaybaha kala duwan ee bulshada dalka Norway, ha noqoto waxbarashada, ha noqoto siyaasadda ama ganacsiga. guulaha ay dhalinyaradan gaaraan kuwa ka qarsoon bulshada ay ka dhasheen ee Soomaalida iyo warbaahinta Norway oo inta badan xoog saarto waxyaabaha xumaanta ama negative-ka ah. barnaamijkeena Dhambaal ee isbuucan waxaa marti noogu ah Shaafici Maxamed Aadan. Shaafici waa milkiilaha shirkaddan garabka ee ka muuqato oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn uguna horeeya ee bixisa casharrada sida gaarka ardayda looga caawiyo ama Lexelbiga, maahan oo keliya laakiin guud ahaan Norway oo dhan. sidoo kale Shaafici iyo saaxiibkii waxay 2 sano ka hor wada aasaaseen shirkaddan Zubit oo laga yaabo inaad magaceeda ama loogadeeda hore u aragtay haddii aad ka adeegato internetka. dadka ka faallooda ganacsiga Norway waxay marar badan ku celceliyeen in shirkaddan uu wax ka aasaasay wiilka Soomaaliga ah ay ka mid tahay shirkadaha revolutionka ama kacaanka gelin kara qaabka ay u wada xiriiraan macaamiisha ayagoo guryahooda jooga alaabta dukaamada ka soo dalbado iyo dukaamada alaabta iibiyo. caadiyan markaad internetka wax ka dalbato waxay qaadataa maalmo, isbuuc ilaa 2 isbuuc mararka qaarkood. laakiin Shaafici iyo shirkadooda cusub waxay aaminsan yihiin inay xilliga sugitaanka alaabta ka soo dhimi karaan 2 isbuuc ayna keeni karaan 2 saac. of English korto waxa la yiraahdaa need is the mother of all inventions. anakana marka need baahisaasana miihan waxaad kaliya waxaan u baahneen internetkan rabnin waxaan ka dalbano film in loo keeno waxaad habeen jimca ah. filimkan internetka ka dalban rabnin waxaan lagu yiri meesha qaadanaysa 2 to 5 days intay imanayso. so intaan iska sugileen waxaan galnay platform company oo shirkad kale oo Norway ah. web page-keedu markaan galnay waxaan ragnay shaygan raadinayna wuxuu yaalaa suuqa ilaa 12-14 kilometer. so gaadhigeenan ka xisano waan tagnay waxay waan soo iibsanay. soo noqodkii marka aniga ninkan business ba yaranara waalay. so business aan ugu sheekaysaneen aan lahayn nimankan imika meeshii ugu horeysan galnay web page-kii waxa dhaafay customer ba dhaafay imika shay baan rabnay inaan kiibsano waxay waan kiibsan kar weyneen fudhi waxay qaadanaysa 2 ilaa 5 maalmo. kuwan kalena wax ka soo qaadanin iyaga macal web page-kooda waxa ku qoran ama internetka ka dalbo sug 2 ilaa 5 maalmo ama dukaanka tago soo doon adiga. intaasoo gawaadhi baa Oslo wareegsanaysa, intaasoo dhalinyaro baa jooga oo shaqo ama wax u kala baahan. saxan ka fikirnay marka haddaan qof ku oran lahayn waxaa noo soo qaad oo guriga nagu keen lacag ma ka bixin lahayn. anaga tusaale ahaan anagaas ka isku qaadanayno aniga 150 korona inuu shayga lii keeno intan suuq beyond bandagnan intan beyond ka soo soconay ilaa suuqa waxaan loo qaatay qof inuu noo keeno. so one start inaan yara eegno waxaan aragnay 99-2000 shirkado baa Mareykanka marka soo baxay oo waxaan try gareynaya marka wax internetka inaad ka dalbatid markiiba kugu keenan saacad gudahooda. problemka nimanka haysta waxaad shay walba waxay rabeen iyagu wax horta waxay soo iibsadaan dadka ka sii iibiyaan. laag wuxuu noqotay warehouse baa loo baahan yahay, logistics gawaadhiina soo iibsadaan wax walba. so as they were succeeding oo shirkadii sii weynaanaysay lacagtii minuska sii gelinay sii badnaanaysay. in 2009 iyo meelahaas waxa soo baxay marka shirkadahan Airbnb iyo Uber oo shay wax ileeyihiin ma jirto, gawaadhi ma laha, guriyaasha ma laha, wax ileeyihiin ma jirto, software kaliya isticmaalayaan iyo sharing economy. saxan isniin okay haddaan waxa isticmaalno sidaan waxaan ku sameyn karnaa. so marka IT waxaan ka naqaana ma jirto. so waxay noqotay marka niman baan qorneen oo marka IT-ga yaqaana oo shirkadana marka stocks ka helay auction ka helay shirkada oo nala soo galay
IT-gii baan iyaga markaa ininka taa intaa ku taqsuda annagana waxaan ku focus garanayna sidaan waxaan business uga soo saarno. Shaafici iyo saaxiibkii xilliga ay shirkadda abuurayaan waxay kusoo beegmatay xilli adduunka oo dhan ay soo badanayaan dadka sida online-ka wax ku iibsado, iyadoo shirkado badan ay u wareegayaan ama qeybo ka mid ah ganacsigooda u wareejinayaan inay ku iibiyaan qaab online ah. Sanad iyo wax yar kadib markii ay shirkadooda bilaabeen, waxaa maalgelin dhan 12 milyan oo lacagta Norway ah ku samaystay laba ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Norway, waa Norgesgruppen iyo Schibsted. Marketka meesha xagee ugu fudusantaa waxaan in la ku tiraageliyo internetkana markaan galnaynayo virke oo markaa organizationka shirkadaha Norway oo wax kale iibiya baan u tagnaynayo numberadooda iyo statisticooda oo dhan baan la soo siiyay. Waxaan aragnay markaa okay electronicska baa aad iyo aad internetka loogu iibsadaa. Electronicna waa wax simple caadi la qaadi karo, telefoon iyo waxaas waa caadi. haddaad raashin qaadisid ama medicals qaadisid a lot of restrictions iyo wax oo dhan baa lagu soo saaraya, sharciyo oo dhan baa ku qabanaya. saxan okay electronic aan ku bilowno aan tusno waxaan inay shaqeynayso, bacdeen markaas baan u tagi karnaa shirkado kale. Schibsted marka our investor aban at the same point aan la hadlinen markaas at that point lacag shirkada soo gashada ma jirto men we were meetings iyo shirar baan kolba isla lahayn iyo status inay eegaan nimadan wax soo kordhinayaan mar walba aan aragno wax shirkada mi ku soo kordhay ama way isdhiibiyaan ama iyo waxaas leh. So balkan contract-gan loo saxeexay 3 bilood kadib ba Schibstedna marka ay yiraahdeen oo shirkada marka waa maal gashanayna oo investors nagu noqdeen. Schibstedna marka anagu Schibsted process ka wadano iyagana shirkada lacagta soo gashatay markaasna waxaan bilawnay Norgesgruppen inaan la hadalno. Waayo markaas waxaan tusnay marketka way shaqeynaysaa inaad wax internetka ka iibsatid dad guriga dadka lagu geeyo 2 saacado. Expert marka wuxuu markaas waan u bilawnay. waxaas baan qaadanina Norgesgruppen la tagnaan ku neeyo okay ninkan waxaan ognahay nin raashinka internetka ka bilaawsan imika la ka dalbado system baan haysano waxaan nin qaban karaa aan test garano. waan bilawnay 6 bilood 8 bilood baan testing la wadnan testingkiisa la wadnan hadhowto xalil okay contract waan siinaya goorisa logistic company oo kala baan hayn. So wax na soo galiyay wax badan bay ahayd waayo ninka alaabta qaadiya lacagtiisa anakii horta na soo gelisay oo soo aan wixii isaga siinayeen. Imika modelka waan yara bedelnay marka Norgesgruppen oo kala kundaheena ah waxaan sameynaa kundihii iyo transport company-ga iyagaan isku xidhnaan ku niraahday inka ku heshiiya waxaad kala qaadanaysaan من لبدينا با platform كاد كوا ده هاد لسان system كاد استعمال لسان وسيستم كيجس أديكنا واحد بحنسة licensing fee بحنسة بالولبا أديكنا licensing fee بحنسة بالولبا سو وحين سوق اللي ويراتي من فائدة دين ويبدناتي. dadkii 2017 waxay Shaafici saaxiibkiis u sharaxnaayeen bilada hal-abuuraha ganacsi ee sanadka. biladaas oo ay bixiso madasha ganacsiga mustaqbalka Norway. sidoo kale wuxuu hore uga mid ahaa koox dhalinyaro ah oo xushay dhaxal sugaha boqortooyada dalka Norway. kooxdaas oo ka mid ah wufuudda caalamiga ah ee sanad walba ka qayb gasho shirka madasha dhaqaalaha adduunka ee sanadkii oo marka dhaca magaalada Davos ee dalka Switzerland. Global Shapers wuxuu ka mid yahay group within the World Economic Forum ka waa group kan Davos sanad walba world leaders ka business leaders religious leaders adduunka dhan isku yimaado leeyahay adduunka sidoo uu horumar lahaa maxaan soo kordhinaa. So waxaan u maleeyahay ilaa 2010 maybe aan u maleeyahay oo leeyahay marka iyagoo shirkan la leeyahay adduunka 50% of the world population dadka adduunka ku nool 27 jir bay ka yar yihiin. waxa maanta meesha groupka meesha waxa fadhiyana waa odayaal content si dhaafiya. haddaan rabno in adduunka wax la ka bedelo dhalinyarada wan soo gelino meeshan. So marka leaderyada meesha la fadhiyo waxa lagu yiri okay waxaan li saaray inaad wadamadiina markaad ku noqotaan inaad group soo saartaan dhalinyaro ah 20 ilaa 30 u kala dhaxeeya oo aad leedihiin local impact sameyn karo adduunka in wax ku soo kordhiyaan. So groupka marka Norway delegation ba ka baxa waa business leaders shirkadaha Norway ugu waaweyn nimanka iyo naaga ugu lacagta badan leh marka ninka le right on Gruppen Rema 1000 iyo Narvesen iyo Has iyo Fard ninka le Johan Andresen wuxuu ninka Norway ugu maalka badan waxay la shaqeynayeen marka reer boqor Crown Prince Haakon iyo Crown Princess Mette-Marit labadana barna ku jiray marka World Economic Forum ka. So waxaan la soo hadlay Schlotte 2012 maleeniheed oo dhig interview baa lagu yeedhay waayo dad baa reference oo yiri inaad eegata markaan waxaan ahaa 20 jir interviewgii wixii markaan laga qaadayna groupka aan ku soo biinan
waxaan markaa first 12 dhalinyaro Norwegian baan la qaatay. Inta badan actually waxay ahaayeen 24 ilaa 27 jir. Haddaan sidoo wariya faana karanada ilaa maanta Somaliland biya ha fursad xanaysan hadee qofku ugu yaraa in history-ga soo galay Global Shapers in Norway. So marka wali alaan kana marka 27 jir baan ahay 20 jir oo groupkeena soo galay ma jirto. yaraantiisii wuxuu Shaafici sheegay inuu ahaa qof aan ku fiicnaan iskuulka aan lahayn wax ambition oo sare ah laakiin ay wax badan noloshiisa iyo fikirkiisaba ka bedeleen dardaaranka iyo guwaabinta waalidkiis iyo dhacdo xanuun badan oo qabsatay xilli uu dhiganayay dugsiga hoose dhexe. waa inta yaraanteeda oo waan yara dhib badnaa wali kan shubac dad baa oran Shaafici yara dhib badan yahay aman waa dhib badnaas karakterkayga iskuulka muu fiicnayn wax taana dhaxeed same thing imika ka hadlisid maskaxda waxaas ay dhacdhacsaneed anigana Soomaali baa tahay ajaanib baa tahay wadankan waan ku koray waan ku dhashay man still maskaxda xaska dhacdhacaysa youth learning baan ahay youth learning karakter xun bad xilli saxad leedahay furi waa afkayga hooyo ma aha wadankan maanu dhalan Norwegian mihi abi hooya marka waxaan xasuustay galaaska 9aad baan ku jiray oo waxaan igala hadliyay oo lagu yiri okay karakterkan maanta maalinta soo aan xasuustay especially head karakterkayga uu xuma waxaan la soo siiyay unmarkninger oo dhan waa hadal badnaa oo marka guriga markaan soo fadhiisan leeyahay waxaan Shaafici maxaa kugu kalifay daanagana wixii intaas sanado iskuulka Norwegian laga bariyay laga lahaa hadaba xataa hay youth learning ama ajaanabo karakterkaaga waa caadi nivooga maro baan anigu ku isticmaalay hooyabna marka mid walba wax walba aan la yimaado excuse walba aan la yimaado way waxaan ordin waxay tahay excuse wax aad been oo kala isku sheegisid oo lagu yiri runta haddaan isku sheegno adiga youth learning ma tihido way wadankan uu ku dhalatay adiga ilmaha Norwegian xadaysataan exactly the same opportunities isku banhaag bad soo marteen isku iskuulaad soo marteen wax walba waad haysataan anaka ba youth learning ah oo ka soo baxnay Soomaaliya oo Norway mid anaka zero wax walba ka soo bilaaway ininka xaga nagu dhalneen oo noqotay inaan shaqaysano aan wadan cusub wax walba ku barano sidaad ininka opportunity-ga anaka haysan markaan soo korneen inaad ininka heshaan oo taasna wax way meel bi damaqday waayo ma hadii rabeen wala iska qaylin lahaa way ay lahaan waxay rabaan la oran lahaayeen men ayna miihen cadana miihen waxay disappointment oo leeyihiin wax walba aan ku sameynana maxaad wax u qabsan weyday taasna meel bi ka damaqdo marka anana iyagana waan loof gareeyay oo waxaan ku yiri ay waan igu balan qaaday wax waan iska bedeliyaa anna balan baan isku qaaday inaan wax ka bedelo ugu muhiimsana oo wax actually ga qabad bedeshay had 1 week after school marka program waxaan ku shaqeynay project wax baan ka wada shaqeynay project-kan ka shaqeynayno marka waxaan sinirday instead of inaan la shaqeeyo groupkayga caadiga aan la shaqeynay jiraan gidigenda waan isla wada liidanaa inaan u tago groupkan smart-ka ah mid groupka ku jira marka labada kale si diplomatic ah baan igu sheegaan ismas la shaqeyn karno mid ba ku jira marka straight igu yiri Shaafici labadan ma ku sheegi karaan oo ma ku dhacaan inuu ku yiraahdo manana runta ku sheegaya wada 5 iyo 6 ban haysanaa adiga 2 bad haysataa wax aad nagu soo kordhinaysa ma jirto suma isla shaqeyn karno taana aray ku kicinaysa oo first of all marka kala meesha horta wasiira afdhaafnan meesha ka baxay mashquusha bantagay caraday haysanade cara isagaan u qaba ma aha waa caran anigu isku haysto for ana position iskaliyi oo qof kale waxa igu oran karo oo waliba runtahay waayo groupkaas waxaan ku soo kordhin kara ma jirto way grade fiican yihiin waxoodu way soo akhrisadeen wixii intii wax akhrisanayeen anigu kubad ban ciyaariya ama meelaha kala mariyay so markaas and especially markaas aan idin mar dambe situation oo qof kale waxa igu oran karo ma dhacayso semester kaas karakterkayga wax badan ma isku bedelin markaan ka soo baxayay 10th grade and below high school ka meeshii aan average kayga mariyay 2.5 2.8 waxaan gaadhay 4.8 high school ka markaan dhameeyay 5.2 baan mariyay jaamacadna ahead straight ka galay 1 year later 10th grade markaan wali ku jirnay isla kii igu yiri groupkeena waxba mar ku soo kordhin kartid ba anigii mid yiri groupkeena ma isla shaqeyn karnaa ana markaas horta first happy horta aan ku ahaa
imika de anaa kaa sareeya waan isla shaqaynin labadeenabana 6 baan keeneen marka imtixaankaas bahalka project planning kan sameyneen anagana marka afterwards waxa dhacaysa mentally qofka waxa ku dhacay marka xitaa goalkaaga markaad gaadhid the happy kaliya ma ku noqonaysid xagaas confidence kaaga ku dhismanayo man xitaa next xagan gaadhi kara maxaan kala qaban karaa dad badan oo muuqaalkan daawanaya ayaa laga yaabaa inay ku fakarayaan bilaawista ganacsi cusub balse aanan aqoon wadadii ay mar lahaayeen wuxuu Shaafici aaminsan yahay in labadan qodob ay muhiim tahay inuu ku fakaro qof walba oo rabo inuu abuuro ganacsi faa'iido leh isla markaana iswadi kara muddo dheer laba geesin horta la ka eego for haddaad too much research samaysidna heer baad gaadhisay inaad noqotid too clever ama too smart ilaa inta heer ka gaadhisaad leedahay waxaan ma qaban karo waxaan waa impossible mana shaqaynayso some research waad u baahan tahay men research ka badbadiisana ma loo baahnaa xogtahay special things inaad wax soo eegatid waxay tahay marketkan ma market horta competitors ma jirta dad kula tartamaya waxaan aad samaynaysid ma easy in la copy gareeyo oo qof kale dhaqso markii inuu soo galo oo price ka hoos loo dejiyo ama waxaas shirkado kale ma jirta oo waxaan hore u sameeyay ama profit ku sameeyay ama faa'iido ka keenay ama the bankrupt galay maxay khalad sameeyeen maxay waxay sameeyeen oo saxsanaa labadaba inaad ka eegatid aad dadka kale khaladaadkooda iyo waxay ku guuleysteen inaad ka baratid oo wax easy ah hadhow talo ku bilaaway dadka qaarna waxay sameeyaan shirkadda marka ay start wax walba la haysto ba la gelinaya gaadhigi bal iibinaya gurigi bal iibinaya raashinkii waxa guriga yaala xal leeyahay wax walba wala kala saafinaya waxa victia wax yar oo fudud horta ku bilaaw marketkina test gelisid oo feedback heshid try gare customer kaaga weydii maxaad ka leedahay maxaan ka bedelaa price ka is it too high margin ka wax ma ka bedeli kartaa markaad heshid model shaqeynaya for wax waxay tahay oo kale the same way as engineer ku building dhisiyo ama painter ka the art kiisa wixii sameeyo business model was the same wanaad samaysid model horta shaqeynaya modelka markaad samaysid badan karto ka modelka waan weynaysiinaya why problem ku xitaa haddaad model hagaajisid oo minus kaliya ab koron macnaha noqoto ama 10 koron ama 100 koron oo minus kaliya markuu business ka gaadho million ama 10 million ama 100 million isla minuskii buu mar walba ku jiriyaa so markaan ka xasmeeyay isagoo businesskii oo yar 100 kun oo korona soo qabanaya maybe sanadkii waan ka dhignay profitable oo faa'iido soo saaro faa'iidada markuu soo saaro marka si marka maanta next xitaa 8 shirkadaas kale xitaa 8 million 10 million soo qabataa the profit-kii wuu soo saaraysa for the model-ki waa model shaqeynaya so taas baan oran lahaa marka focus on wax shaqeynaya inaad soo saartid even haddii wax yar tahay the most important thing xitaa waxaad baranaysid iyo modelka waxaan soo start garanay marka 7 shirkado 4-5 waxba ma laga faa'iidin oona the almost bankrupt oo kala bigaleen when the most important thing aan ka faa'iidin waxay tahay experience ka the failure ma aha failure waa wax marka waa the best knowledge aad heli kartid waxay tahay markaad wax tijaabisid oo shaqeyn weydo aad fahamtid waayo shaqeyn weyday bad markaad wax baranaysaa aad wax ka bedeli kartaa